aad baan ugu mahadnaqayaa aqoonyahanka reer Awdal saddexda haliyay maanta halka ku xusan oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland la guddoonsiiyay shahaado sharafta safiirka Baasha Cawil iyo injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga wicid aad baan ugu mahadnaqayaa sida aad u guddoonsiiseen talabaad waana wax wanaagsan sidii walaalahaygii iga horreeyay ay sheegeen in dadka wax qabta ama wax hagaajiya in taariikhdu ay xusto oo wanaagooda loogu abaal mariyo si kuwa la jooga ama daba socdaayna ay u daydaan marka hawshoodu iyaguna sidaas oo kale ay noqoto wax dhiirigelina ama wax ay hiigsadaan siday bulshadu isku qiimayso waa sida aad baan taa ugu faraxsanahay waxaan maanta mahadnaq weyn aan leeyahay ilaahayna abuuray ee abaartii inaga jabiyey dalka bari iyo galbeedba roobka isqabsaday aad baan dhammaanteenba inaynu ilaahay ku shukrino oon alxamdulilah nidhaahno weey maanta ta kale waxaan halka ku dheeraanayo Faysal saaxiibkay laba kalmood baan leeyahay tawgiili madaxweynaha waqtigiisii baa ka dhacay oo aniga ayaa samayn doona horta waxaan leeyahay Faysal madaxweynaha waqtigiisii gabadha inteeramkiisii labaad xaq buu lahaa isaga ayaa ka taraasulay ligasigiisii ama ajadihiisii ama wixii uu rabay inuu qabto isaga ayaa wuxuu u igmaday madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo Muuse Biixi Cabdi oo musharaxa madaxweynaha shaqadii madaxweynuhu wadadii ceerigaabo tanna way bilaamaysaa haddii la yidhaahdo sidaa loo sheegay wayna socon doontaa waxqabad dhab ah ayay xukuumaddani ka barakacaysaa waana madaxweynuhu wuxuu guddoonsaday musharaxa madaxweynaha Muuse Biixina iyo madaxweyne ku-xigeenka oo gobolka ka soo jeedayba labaduba way caddeeyeen inay waddadaa dhisayaan marka ligasigii Axmed Silaayo unbaa soconaya haddii ilaahay yidhaahdo talabaad ku leehayna waxa weeye sixir bararka aad xukuumadda u soo jeedisay way fiican tahay laakiin waxaan idinku wargelinayaa in shaqadii xukuumadda ay ku jirtay baryahanka uu saaka sarifku marayo 840 oo aad u soo dhacay shaqadii xukuumadda ay ku jirto lagana shaqayn doono maalmaha soo socda oo intaa ilaa madaxweyne ilaa in hoose waa loo guntanaa in laga shaqeeyo intaba oo waa wax waajib saaran xukuumadda weeyi in sixir bararka ummadda aafeeyey wax laga qabtaay oo waajibka xukuumadda koowaad in wax looga qabto waxaan fariinkaana halkaan uga dirayaa reer Awdal diiwaangelintii oo iyaduna socota ayaan leeyahay in kaarka la qaato inta hadhay way yar tahay si fiican baa loo qaatay waxa weeye boorama waxay ku eg tahay axadda haddii la yidhaahdo oo ay bishu tahay 22 bishan in la wada qaato kaarka saddexda degmada kale Baki Lughaya iyo Sayrac waxay ku eg tahay bari mahaysahan dambe oo ay bishu tahay 19 waxa weeye taana in laga wada qayb qaato oo ehelada ama dadka aan qaadan sidii awalba looga shaqeeyba inaad aad looga shaqeeyo oo la wada qaato tawdabaysan kaga baxayay waxa weeye waxa isagana mahadnaq gaar ah leh saami qaybsigii ama habkii golayaasha ee loo qaybsanayay ee reer Awdal ay cabashada ka muujiyeen ee madaxweynuhu aqbalay ee labada doorasho la kala saaray waxa weeye sida Faysal gudoomiyuhu taabtay doodeedu way socotaa waxa weeye marka labada golo la isku daro waa 284 doodeedu way socotaa ilaa imika waxa la leeyahay ma waxba lagu daraa baarlamaanka ma intii hore dib loo qaybiyaa oo gobolada laga soo jarjaraa ma waxa leeyahay in laga soo jaro guurtida oo la yareeyo konton laga dhigo 40 laga dhigo waa dood socota oo doodeedu waa wax socda marka wali maysa soo dhamaan laakiin xalku uu ima doona haddii la yiraahdo Faysal intuu yiri waa sax annaguna doodu way socotaa xilligeeda iyo waqtigeeda ayay ima doontaa waxaan ku balan qaadinaa in wax fiican iyo saabi fiican oo reer Awdal ku qosliyay wanaagsan inuu soo socdo
waana idinka aawadiin waxa uu madaxweynuhu dib ugu dhigay oo uu labada doorasho loo kala saaray waayo markii hore way saarnaayeen taasna waxa weeye wax fiican baa ka soo socda waynu wada joogi doonaa sida loo dhigi doona haddii la yidhaahdo taana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu dambayntii dadka madasha soo qabanqaabiyey aqoonyahanka reer awdal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambayntiina waxaan mahadnaq gaar ugu dirayaa ururka sadda sida wanaagsan ay waddada u bilaabeen in ballanqaadkiinnii madaxweynuhu idin ballan qaaday eed xafiiskiisa ku timaadeen inuu halkiisii yaallo waayo dalka xoolihii baa xidhmay xoolihii markay xidhmeenna lafdhabar buu inoo ahaa xoolahayna aynu dhoofinay oo dhaqaalihii hoos buu yala dhacay taasaa keentay in wasaaradaha qaarkoodba ama wasaaradaha intooda badanba operationskii ama kharashkoodii la dhimay si miisaaniyadda loo eego xilliyada dambe xoolihina way furmi doonaan marka asada waxaan leeyahay ballanqaadkii waa sidiisii in haddii ilaahay yidhaahdo waa laydinkala qayb qaadan doonaa waa la dhisi doonaa inta aanan doorashadu gaadhinna waddadaasi meel fiican bay gaari doontaa haddii ilaahay yidhaahdo ta u dambaysana waxa weeye deegaanka dhulkeenna reer awdal waynu wada garanaynaa inaan wadda xuma ayna haysato inaynu codkeenna maanta aynu ku gadanno waddo soo maaha codkeenna maanta inaynu xisbiga siino kulmiye si aynu isagana ula galno heshiis oo aynu noqonno dad tooda iyo dantooda ka raaca soo maaha sidaa weeye haddii ilaahay yidhaahdo wabilaahi towfiiq.